وعيس محمود وحنو تاجر سنهاي قامدي قدي ده صدق هي صدق كاكسو بحي SSC وانو تاجر ري سب حدا مقلب انو تاجر دمان علماء عذكر عقال دليرو سب هوين سب حدا انو تاجر ري وحنو لeenahay دمان SSC وحويه سب حدا inaynu taageero baa la rabaa dhamaanteen qodobada dal iyo dabad meel aynu joognaba taana intaasaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay nimanka Somaliland ragga u shaqeeyo shaqaalaha oo SSC dadka ku fadhideen kuraasta waa kuwan dadkiina la tashada la midooba waxa weeye qaata go'aamada gudida waxaan ku darayaa ciidamada Somaliland waxaan leeyahay sidii gudiduba hore u sheegtay ama SSC sheegtay iskaga baxa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Sool oo diilay kuraya madaxduubka iyo ciidamada SNM ay naga laayeen baanu halka ugu taxsiyeynaa ilaahay samir iyo amaan haynaga siiyo dhamaan taas marka ka gudbo shirkii gudiga dhulbahante iyo fiqishina ay gudigii ay qaybsadeen oo loo qeybiyay garaad Ismaaciil garaad Ismaaciil loo qeybiyay gudigaas qodobada ay soo saareen 12 qodob bay ahaayeen dhamaan waanu taageeray gacmaha lagu taagnayaan beeshii Cumar Waciis baa ku haysa shirka jaraa'idoo ku saabsan go'aamadii ka soo baxay gudiga SSC reer SSC inay ku taageeraan marka hore salaam guud waxaan u gudbinayaa reer SSC meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad marka labaad tacsi guud waxaan u gudbinayaa reer SSC meel kastoo ay joogaan dadkii hore oo madaxduubka leeynaga dilay iyo kan ugu dambeeyay ba marka la isku soo duubo naftayada iyo naftiina nimankan la yiraahdo reer Somaliland waqooyi isirnimo kuma aanaa wada joogin marka iyagii hore saddex calaamad ku wada joognay saddexdii calaamo iyaga xumeeyay oo ciid ku sayray waxa weeye marka hore Soomaalinimo aanu ku wada joognay saddexdii calaamadood ciid bay ku sayreen waxay noqotay marka dalka iyo dadkaba in bay ka leeyihiin dalka iyo dadkaba intii ay kala haayeen ha ku filaato oo ha ku ekaadeen waliba waxa shariicada islaamka anagoo dhamaysanayna waxa la yiri hadduu ninku kugu soo duulo oo dabco naftaada inuu ku dilo shariicada islaamka waxa la marka hore waa la abihiyaa mar hore iyo mar dambe waxaan waa abihinaynaa waxaan leenahay haddii Allaahina la yahay oo Allaahina la yahay badda rasuulka aad tihiin dalka yaga nooga baxo oo dalkiini iyo dadkiini intaad kala haydan ku noqda maanta waxay taagan tahay nabiga ummadda nin walba nafta qofka iyaga ugu dambeeya annagu awalba Soomaaliland ma aanu hayn beelaha dhul bahante oo Soomaaliland ka maqan baanu hayn dad kala jajabaya oo qaarba meel aadayo ma nihin annagu waxaanu leenahay beelaha qaybsan ee siyaasadda firiidhay meel walba kaga jira xukunkoodu uu yaacsan yahay inay midoobaan oo si xalaal dhul bahante u noqdaan oo kuwaasaan la shuraakeynayna sidaa kuwaasaan la shuraakeynayna isimada iyo golaha dhaqanka nabadoonnada dadka loo xil saaray hoggaanka qabaa'ilka waa inay sidii gudidu sheegtay fuliyaan shir degdeg isugu yimaadaan golaha yimaadaan nin maanta ka wareegaya laascaanood oo magaalooyin kale shir jiraa'id ka qabanaya annagu ma ayidayno
فرينا وحانو ديريا beelweynta degta gobolada SSC Sool iyo Sanaag yacayn fariintan isimada iyo waxgaradka u dirayo Soomaaliya nimanka la yiraahdo reer Sheekh Asxaab waxaanu nahay dad darisa dad xigaala dad isku noola annagu haddii aanu nahay gobolada dega dadka dega gobolada aanu sheegayno colaadiina nugumana kaarana nugumana jirto si haddaan colaadiina nugu jiro waxaanu ka codsananaa mid dhow iyo mid dheer baanu ogeysiinanaa waxaan hadday fidma dhacdo fidmadu musabixi ku ekaan mayso waxay saameynaysaa beelaha deriska ah wadan isku noosha waxaan ciidamada kulli qabiil ku wada abtirsanaya waxaanu isimada iyo waxgaradada aan fariintan u gudbinayaa tinadii allahin alla yaada islaam tihiin inaan nin kasto wixii ciidankaaga jira aad kala baxday halka ilaalisid derisnimada ilaalisid fitan inuu dhaco sideen iyo walaalnimada iyo xilnimadeena sideen ugu noolay derisnimadeena waxaan ku darayaa nimanka la yiraahdo daarood waxa la yiri baruuriyooday baa gabiyo wuxuu yiri haddaad dhaaban tahay aad lugaha dhiiqe ku istaagtid dhashii aabbahaadoo qura dhooba kaa qoda bal yaa nooga kiindhow waxbaa la isu dherershaaya mise waana dhiibteen su'aal dhayga glaatimi daaroodow inaadna dhiibteen oo na dayriseen iyo halgankaa iyo dhiigga iyagaa qulqulaya inaad ka qayb qaadanaysaan jawaabteedii waa idinka sugaynaa oo yay nagu noqon dibigii doolood oo la yiri dhagtiisuna wax xul ma maqasho ishiisuna waxsan ma aragto wax waanu maqalnaa laakiin waxba ma aanu arag idinkana intaas